الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد مقعي ومحمد علمي حسين حكت السنة هاي أرضية جامعة بنادر وحان هلكا كقبناي برنامج بعيدسين ددك طباليسان كجرا كاممك كدو جامعة بنادر كيلومتر 17 waxaan halkaan ku ciidsiinay tiro gaarayso 350 qoys oo caruur iyo dad waayeen labada maanu ciidsiinay waxaan caruurta u ciidsiinay wiilal iyo gabdho ayaan u kala qaybinay annagoo ku fiirinayna da'dooda ayaan dharkooda soo siinay dadka waalidiinta ah ee aan iyaguna haysan wax ay ku ciidaan waxaan siinay dhar aan ka soo aruurnay ardayda kala duwan ee jaamacadda oo aan u nidaaminay una habaynay ayaan siinay iyagana waxaan aad ugu faraxsanahay in barnaamijkan sidii aan u rabnay oo noogu hirgalay waxaan rabnaa inaan u mahad celinno maamulka sare ee jaamacadda iyo midowga ardayda jaamacadda Banaadir Majab waxaan rabnaa inaan halkaan ka sii wadno mowduucyadan hadii Ilaahay qadaro halkaan ka sii wadno insha Allah wixii aan awoodnana waan sii wadi doonaa insha Allah barnaamijka xigana waxaan qaban doonaa isla muddo kooban gudahood oo aan ku siin doono dhar kale oo aan hayno dadka kale oo dhibaataysan waana maasantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah bacd dabcan barnaamijka maanta una mid meeshan waxay tahay in aan ciidsiino dadka aan awoodin oo ciidsiino walaalkii oo bixiyay maxamed cilmiasa ahay tiim ka shaqeynaya barnaamijkan oo aad maalmaan uga shaqeynaya mashruucan wuxuu gabagabo u yahay mashaariic ardayda jaamacadda midowga ardayda jaamacadda Banaadir ee muddooyinkan wadeen oo laga soo bilaabo markii abaaraha ay bilaabeen ilaa hadda sidii hore u weedeen baawaanihii ardayda jaamacadda Banaadir si guud uga qayb qaateen mashruucii abaaraha waxaa nooga xigay mashruuc kale oo daaweyna asagana waxa ku soo xigay mashruuc kale oo daawo qaybina oo isniinta hadda soo dhaafay ayaan bixinay maanta waxaan ku soo afgareynaa mashruuc ciid walaalka oo dadka masaakiinta ee dariska leh kambaska Dr. Shahiid kambas ee kan 13 inay ciidsiino 350 qoys ka badan caruurtooda u ciidsiiyay oo xitaa reeraha qaar 3 cunug iyo 2 cunug ay ahaayeen dadka waxay gaarayaan ilaa iyo 600 oo cunug ciidsiinay maanta sidoo kale sidoo walaalkay sheegay dhar waxaa jira oo soo isticmaalay oo walaalkeen ardayda noo keeneen ayagana aan hagaajino si fiican u sameeynay ayadana waxay ku ciidsiiyeen dadkan maanta caruurta noo imaatay waalidiintooda dabcan mashruucan mashruuc waxa weeyaan nin walba wuxuu tiro inuu bulshada u taro waxayna ku beesgaraysan tahay barnaamijka jaamacadda oo ahaan loo aasaasay oo in u shaqeyso ummadan waxbarasho ahaan kaliya ma aha inaan ku shaqeynayno arday ahaan mas'uuliyad naga saaran ummadan tiyaan ka shaqeynaynay dabcan waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed dhammaantood inay soo isku caawin doonaan waxaan leeyahay ciid ku wada ciida farxad iyo baraare insha Allah ma santii